xafladda lacagaha lagu guddoonsiinaya dadka danyarta ee maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Axmed Bikole iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda Danwadaag oo iyadu lacagahaasi guddoonsiinaysay dadka danyarta. Dadkan danyarta ee laga soo xulay 8 xaafadood ee magaalada Baydhabo ay ka kooban tahay ayaa waxay tiradoodu gaaraysay 40 ruux oo isugu jira rag iyo haween, iyagoona lacagaha lagu guddoonsiinay looga talagalay inay shaqo abuur ay ku sameystaan. Ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay mid ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Danwadaag, waxaana uu sharaxayaa sida ay ku soo xuleen dadkan danyarta isagoona ku dheeraaday waxqabadka hay'adda Danwadaag. Waxaana sidoo kale uu sheegay dadkan maanta lacagaha lagu guddoonsiinayo in tababaro dhinaca ganacsiga hore loo soo siiyay. qof la ku xuli safayla la xuli ila lama gudiye macnaha xuleen mayl aray dad kulli may wal madawal misli hal quran laakiin fursada yoom weeldi marka insha Allah ta'ala in ganacsi yar macnaha yo ka bilaawadan waan ka dadaalan macnaha yalla fadaha insha Allah tabarna wal hasiin dhulka bir tabarkiina kulli walbada ku faa'iideysadeen marka wali kulli macnaha faafahinta oo lacag tibadun kaalmada hayti yalla si la fadaha geek. Intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay lacagahaasi shaqo abuurka, waxayna hay'adda Danwadaag ugu mahadceliyeen sida ay u garab taagan tahay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay. Waxaana sidoo kale ay sheegeen in lacagahani maanta la guddoonsiiyay ay shaqo abuur ay ku sameysan doonaan. ilaahay ku soo madan adigoo dheeraw Danwadaag يا إلك ما هذا ما جرنا إلى يعني أحسن نيجا صوبي نيجا فايدي. أبا هنا يا ستحبر أفربر تبر النسي ونضد نكسانين نباري ولا نكسانين نباري يدي ذاك ما هذا اليوم. ما تقولون وين أطيب معنا ونحن كانوا قيمك ويرلون دبيك ويرلون شرب نسي ويرلون هاي حتى مده إلى المسيسية الناري. gabagabadii xafladda ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Axmed Bikole, waxaana uu mahadceliyay hay'adda Danwadaag oo magaalada Baydhabo ka sameynaysa mashruucyo lagu faa'iideynayo dadka shacabka. Waxaana sidoo kale 40 ruux ee ka faa'iideystay lacagahaasi kula dardaarmay inay ku shaqeystaan lacagahaasi. sida meel raayis waxa Danwadaag iyo guddiga task force oo shaqeeyay iyo hay'adda DDG oo humanitarianka ka talagalay walay وقبض هايتي مقالنا بينو الدمهان محد بالعربية الجديدة إلهم هذا سكله هذا كبعد ويجمل يدك جيك والله سي هاي دد طبعا ليسن أو كنول دمنا بينو. intaasi kadib 40 ruux ee ka faa'iideystay lacagaha ayaa lagu guddoonsiyay goobta, iyadoona qofkiiba lagu guddoonsiinay $200 Mareykanka si ay ganacsigooda ugu bilowdaan. Si kastaba hay'adda Danwadaag ayaa magaalada Baydhabo ka qabatay mashruucyo dhowr ah oo bulshada looga faa'iideynayo oo ay ka mid yihiin shaqo abuur ay u sameynayaan dadka dib ugu soo noqonaya xariyaha barakacayaasha dalka Kenya, kuwaas oo had yartan ku shaqeysa gudaha magaalada Baydhabo. Siraaj Isaaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.